shirkadda isgaarsiinta Somtel oo adeegyadeeda ku soo kordhisay laba adeeg oo casri ah koonfurta Soomaaliya sida warbixinta warkan markale oo inoogu eegayay wariyaheena Haashim Aadan Maxamed. Adeegyadan cusub ay ku soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxa la kala yiraahdaa kaaliye iyo danwadaag oo ah adeegyo cusub oo macaamiisha shirkaddu ay isticmaasho ay ku heli karaan abaalmarino. Munaasabada lagu qabtay magaalada Tan Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay shirkadda macaamiil iyo marti sharaf kale isla markaana lagu soo bandhigayay sida loo isticmaalo adeegyadan cusub iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin ayaa waxa ugu horeyntii dadkii ka soo qayb galay munaasabadan u sharaxay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Somtel. barnaamijkan waa saddex qaybood uu ka kooban yahay waa kulligiisna waa abaalmarin. barnaamijkaas saddexda qaybood ka kooban horay waa u soo tijaabinay asagoo bilan soo tijaabinay waa lagu guuleystay shacabka iyo dadkii oo dhan way soo dhaweeyeen abaalmarintaas. haddaan gudaha u galno waxay kala yihiin saddex qaybood. qaybta koowaad waxaa la dhahaa abaalmariye waxaa waaye waa isbuucle ku shubo maalin walba $1 isbuucaas intuu socdo waxaana u istaagtaa ama xaq waxa uu leedahay oo u tartami kartaa inaad ku guuleysatid 1 milyan oo shilinka Soomaaliga waana isbuuci. waxaa jiro qayb kale asagana ka baaxad weyn oo bilo ah waxaa la dhahaa danwadaag. waxa waaye asaga maalin walba waxaad ku hadashaa 25 daqiiqo maalin walba iyo wixii ka badan bishaas oo idil maalin walba waxaa xaq u leedahay ama u soo istaagi kartaa inaad u tartantid inaad ku guuleysid agabyada kala duwan oo kala ah dalo moobeelo laptopyo iyo arrimo badan oo qiimo badan. waxaa jira asagana la dhaho kaaliye waxaa waaye asagana waa 3 bilood leh. saddexdaas bilood maalin walba waxaad ku shubanaysaa $1 iyo wixii ka badan markaas waxaad u soo istaagi kartaa oo u tartami kartaa inaad ku guuleysatid baabuur Toyota ah oo aad u qiimo badan. marka shacabka Soomaaliyeed min degmo tuulo iyo meel walba oo shirkadda Somtel ay joogto uu u furan yahay magaalada Muqdisho bas ma aha. waagii horeba gobollada dhan ayaa ka faa'iideystay haddana gobollada degmooyinka tuulooyinka meelaha baadiyaha qolo walba oo meesha ku guuleysto ku gaarsiinayna anagoo ah shirkadda Somtel walaal ku soo dhawaada. Ustaad Afrax oo ka mid ah madaxda shirkadda isgaarsiinta Somtel oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in adeegyadan cusub kaaliye iyo danwadaag ay ka mid yihiin horumarada ay shirkaddu gaartay gaar ahaan xarumaha ay shirkaddu ka howlgasho ee koonfurta Soomaaliya. barnaamijkaanina waa barnaamij daahfur u ah tartanka bulshada ka qayb galaysa daqiiqadaha lagu tartamayo oo kaaliye iyo danwadaag iyo maxaan ku yiraahdaa abaalmariye. barnaamijka guud ee launchiga iyo dhaqaaqa Somtel waa barnaamij kumanaan qof ay ka soo qayb gali doonto insha Allah taala laakiin intaan waxay qosaysaa oo 100 qof looga casuumay in lagu daahfuro muxuu ahaa barnaamijkan boqolaal badanna insha Allah iyo kumanaanna waa lagu casuumi doonaa. waxaan idinku bishaaraynayaa inta joogtay ta maqan aan u sheegayaa shirkaddu inay ka qayb qaadatay muxuu ahaa already insha Allah maalmaha soo socdana ay ka qayb qaadan doonto tagina doonto xarumaha dadka qaxootiga insha Allah ay door weyn ay ka qaadatay go'aan ay ka qaadatay social responsibility-gan ay wax weyn ka qaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socdana ay tagi doonto insha Allah qaybaha hadda ugu baahi badan social responsibility-ga waa aad u ballaaran oo magac ballaaran laakiin qaybteeda gargaarka insha Allah ayaan maalmaha soo socda wax ka qaban doona hadii Ilaahay yiraahdo. shukran. shirkadda Somtel ayaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee ka howlgala guud ahaan dalka Soomaaliya waxa ayna muddooyinkii ugu dambeeyay soo kordhisay adeegyo kala duwan oo casri ah. Haashim Aadan Maxamed, Somali Cable TV.